dhammaan dadka soo qayb galay panelka maadaama la yiri waqtigu waa kooban waxaan rabaa inaan waqtiga beeqaamiyo runtii aniga waxaan isleeyahay madaxweyne Trump runtuu noo sheegay waana sax sadaadoq ma lahaa markasta aad dugsadaysid wixii lagu siiyaa $1 ilaa $10 waa inaad iska qaadatid marka aniga hal eraya isoo jiitay oo doctorka jaamacadda Soomaaliya yiri oo ah madaxdeenu waxay u dhaqmaan mental injury waa sax يعني ما أنت واحد تاجنها إسقوس سيدي سنغافورة عمل أو مركي ماليزيا إسكجرتي أنت دد كيسي نيكي ليكو وين أنت دد كيسي سكوجو ياري هور مركي ضيع حتقتي مركا أنا واحد ربع دكتورة سيدام منتل كاس وش بريش منتل لو سمي كرا أما مسكحة صلوا دقيق كرا وسخودي دد كانوا عادي سوا ما سنتي ما 10 سكن على يجري ما كحارة هالمد بس أنا كسر دو جبيو إن the way forward محوية هاي مركب waxaan rabaa sheekadan inaan ku soo gabagabeeyo dadka taariikhda akhriyana soo baara nina wuxuu iga sheekeeyay inay Kuwait ahayd ma aqaan wadamadan qaliijka mid ka mid ah oday waayeel oo Arab ayaa waxa ag fadhiyay wiil kale oo Arab kala marka wiilkii dhalinyaro ahaa Soomaali wax ka sheegay wuxuu yiri Soomaaliya waa faqri Soomaaliya xoolo ma haystaan baahi ayaa ka jirta marka oday waayilka muxuu ku yiri wuxuu yiri iska aamus Soomaaliya ma taqaanid waxaana soo martay anaga khaliijka hadana wadamadan Kuwait Bahrain Oman waxaana soo martay yiri xilli warqad ah u qoran jirnay Soomaaliya oo aan dhigi jirnay Soomaalida sakada markii xilliga sakada la gaaro waxaan noo soo dhiibaan marka ani waxaan qabaa maanta waxa la joogaa xilligii anaga isku tashan lahayn xilligii beeraha aadi lahayn xilligii kalluumaysiga aan aadi lahayn iyo xilligii aqoonteena iyo xirfadeena kor u qaadi lahayn adduunka uu soo xirmayaa adduunka waxa uu muudaa in qolo kasta isku tashan doonto marka anaga aan isku tashanno miskaxdeena aan furno ninkii baadiye ee geel uu ka jirana geeliisa ha badiyo ninkii beer lahaana beertii haddaba falo kii xeeb deganaana doontaada samayso intaas ku soo gabagabeynaa